KNN. aniyaa ku macnaankaaley haye kalsooniisiisa ay kaalaamaan aniyaa ku macnaankaaley kalsooniisiisa ay kaalaamaan aniyaa ku macnaankaaley haye kalsooniisiisa ay kaalaamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN arkalamaan iyo waram beriga waxa la yiri baarlamaanka labadi aqalba waa fadhiista wax buuq iyo sawaxan oo ka jirana ma jiraan ma la heshiiyay wargolaha shacabka wariyaasha aan gashnay funaanadaha xarumahooda warbaahin laabta ay yiraahdeen maanta horta aqalkii sare iyo aqalkii hoose hadday isku yimaadeen aqalkii dhexe xagu waaday aryaakaas waaga mihidhaxa kama imaanay u kaadi war kalamaan diin leeya safarkii nootabi reer seeday nabadiis war waa tinacsan tahay safarka xildhibaanada marka kala fadhiga u xirmo war baarlamaanka aqalka hoose guddigii doorashooyinku maanta warbixin ka dhageysanaya la yiri aqalka sarana guddigii dastuurka ayuu asna warbixin ka dhageysanaya la yiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sarana wuxuu yiri dawladdu waa inay dardar gelisaa wada hadallada Soomaaliland si ay dastuurka dhamaystirkiisa qayb uga noqdaan shacabka reer Soomaaliland war marka dastuur la soo hadal qaado ayuunba ku soo xabaalato Soomaaliland tarbaanu maxaa kala naga dhaxeeya aqalka sare Soomaaliland tabashooyinka hore intaysan u gudbin ayaka iyo aqalka hoose tii u dhaxaysa ma la xaliyay war langa kanooga ama geeljir hoose lindhiga waa la reetaasiyada hoose lindhigi warnimayo waxa la yiri dalkanagu markii uu burburay la kala yaacay qabiilada dadkeenu isku dilay waana la ogaayeen ayagoon heshiin baa hadana la isku soo daraye baarlamaan miyay noqonayaan weyla ama kaaga war cidna laguma dilin qarax maanta muqdisho ka dhacay war qaraxu wadada shaqaaluhu ka dhacay baabuur qarax lagu soo xiray buuna ahaa laba baabuur oo kale aan ku gubatay dadna kuma dhiman arya adigu qaraxan lagu dhimanaad sheegay haddaanu mid cusub ka dhacay saldhiga waa bari hortiisoo dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmay war ma qaraxun baan iyo ku jiraysan ilaa haawi ilaa aadan nimay awoodin qarax dhaco ummadana dhibaato loogu geesto maalin kastana ay dhacayso dhibaato weyn aan shacabku ugu jirtay qarax yaa qayladaan miya nalo ku qoray qarnigan qarax yaa qayladaan miya nala ku qoray qarnigan haye warwar ma haysaane nin hubaysan ayaa wuxuu weeraray saldhiga booliska degmada warta nabadda bamba gacmeed ayuuna ku tuuray kadib ciidanka booliiska ayaa ceersaday wuxuuna ka galay guri dad shacab uu leeyahay halkaas ayuu muddo ka dagaalamayay wuxuuna ku dhaawacay ilaa 5 askari kadibna asigoo dhaawac ayaa la soo qabtay booliiska ayaana la wareegay warwar ma haysaane ninka bombada tuuray guriga u galay oo dadka shacabka ay deganaayeen dhammaantiisu u burburaa la yiri warnamiya gurigaas la baabi'iyay lanka masaakiinta ee lahaay dhismadiis shabaaba la kaleeya mas dawladda la kaleeya aryaa lama maroodi mahay ku dirirto cawsa ku gacan galaya la yiriye iska aamus niman yahow arrintaas waxayna tusaysaa ciidamada dawladda haddii loo tababaro hal askari oo ka mid inuu soo baabi'in karo cadawga warnamada siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa shir jaraa'id qabtay wuxuu yiri banaanbax dawladda looga soo horjeedo ayaa la diyaarinayaa rag mucaarad ahana ka dambeeyuu yiri oo Umar Cabdirashiid ka magacaabay oo uu sheegay inay cimaaraadka lacag ka soo qaateen war waxba kama ogeedo wuxuu kale yiri haram cadku intuu baahan yahay waa hinraaga mana aamuso ilaa uu wax cuno mucaaradkuna waa nuucaas warnamiya uma siin warsaday mucaaradka baryaawun mahdalaan shibaan yaaleen wala hadalay dawladda leeyahay marka Salaad Cali Jeelle war ku usi sheegi hilimi lahan ka sheegay aryaadaha war ma haysiin maxkamadda gobolka maanta waxa la hor keenay la yiri 7 qofood oo ku eedeysan dilkii iyo gubistii Axmed Dawlo hadda wixii lala shibanay alla soo shaaci rabaa runku suga war ma haysaane Aisha Ilyas gabadhii hadda ka hor gaalkacyo lagu dilay laguna kufsaday hooyadeed baa xal hadashay cadaalad darreena ka sheegatay maxkamadaha Puntland waxayna tiri ninkii booliska ay markii ugu horeysay gurigeyga yimid ilaa hadda baaritaan ay ugu imaanaya war madaxweynaha hore Suudaan Umar Xasan al-Bashiir waa tileeyay xabsi guriga ku jira hadda waxa la leeyahay xabsi rasmi ah loo gudbiyay war madaxweyne al-Bashiir habadi rootiga hayta antaas dhibaan jeysatay nimayo saas waxaad ku ogaanaysaan rootiga Suudaan inuu dadka Soomaalida oo maalin kasta la leynayo ka qaalisan yahay saaxiibayaal waad ka
mahadsantihiin xalay ciyaarihii ugu kula Champions League baa dhacay Barcelona Manchester bay ka adkaatay Manchester meeqa maraa heela dibirsaday war maxaa digiroodi ma ka sheegaysaa war kooxda Ajaxna Juventus ay cirka u dirtay waxaase ka siiya badnaa markii askarkayaantii ciyaarta fiirsanaysa qoriyihii laga qaatay aryaadaha askarta Kenya intay dagaal ku jiraan yara iyo koob banooni fiirsahayo haddii qoryihii laga qaadahayo saasay rabaan inay baddeena ku xoogaana ka waranhe war ma beer baa la fayeesha war nimayo war ma haysiine dhirta duurka waa kala naqaan geedka dhuuxa leh kan imuday dhigtaar iyo ma aha qaydarkii dhagax waa dhirindhir dhilquhu saansadiyo coodin dhaashaday ma intaasaad ku soo koobaysaa yaadan sii badan war aniga hay dhaajina dhulkiinna iyo dadkiinna u shaqeeya warya dhiraandhiru bilaash inguraasma taasaylika jidgaatiile fadoo hay bahluntan aryaa dhirindhiri walee buusti ka maahin war ordoniyon meesha lagu kala kaxeeyo waxba kuma haysaan mee kaalda mee faraasta naga taga maxabiisa la soo daayay naga taga Allah idin asture